xildhibaan maxamed abiib waan hambalyaynayaa maanta ficilka wanaagsan ee uu sameeyey صح maanta xildhibaan maxamed abiib ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey gobolkii awdal maxamed abiib wax aan laga filayn ayuu maanta sameeyey waan idinla wadaagi doonaa haddii ilaahay dhaxdo waxaan idinka codsanayaa muuqaalkan inaad laygaraysiin siina sheergaraysiin maxamed abiib oo ay baryahanba ishayeen ma garanaysaa madaxda dalka ugu sarreysa sida madaxweyne muuse biixi xeer ilaalinta guud ee jamhuuriyadda somalilanna ay kasoo gudbisay dacwad oo ay waraaqad soo saartay xilka xayuubina ama maamuska xayuubina ayay baryahan ugu dambeysay way kacsaneen xaaladiisu haddaba maxamed abiib wixii uu maanta sameeyey wax la yaab shacabka jamhuuriyadda somalilan ku noqday ayay ahaayeen waanan hambalyeynaya bal ila eega in yar muuse ha dhaco jamhuuriyadda somalilan ha noolaato qofka bini'aadankii haddii uu qofka ka siyaasad duwanaado waa caadi wax dhiba male anigu xildhibaan maxamed abiib waan hambalyaynayaa maanta ficilka wanaagsan ee uu sameeyey waxaan idinla wadaagi doonaa qodob kale oo ah maanta waxa lagu soo dhex qariyey soo dhoweyntii maxamed abiib niman maro inta loo soo dhiibay calanka awdal state waxa la yidhaahdo calan ay ugu dareen oo calanka argentina ay isku eegyihiin marooyin calanka argentina ay isku eegyihiin inta loo qeybiyey ayaa lagu yidhi markaad soo dhoweynaysiin maxamed abiib waxaad samaysiin wax ma garanaysaa ayay la dhex yaaca calanka somalilan meeshuu ka taagan yahay ka kalena ka taaga waxa weeyi taana caddayn baan idinka hayaa mar labaad waxaan idinka codsanayaa muuqaalka inaad sheergaraysiin sidoo kalena aad laygaraysiin wixii fikradaadaana een anigu muuqaalkan kaga hadlayo ee adigana fikirkaaga ku aadan haddii aad daawanaysid waxa weeye xagga gudaha idhig aad iyo aad baad umahadsan tahay bal haddaba waxaynu eegi doonaa mid ka mida dhallinyaradii soo dhoweynayey xildhibaan maxamed abiib oo ka sheekeynaysa calamaantii iyo wixii loo qeybiyey iyo maxamed abiib wixii uu meesha kaga hadlay waxay taagan tahay waxaanaan ka filayn ayuu meesha maxamed abiib kaga hadlay waxa anagu maanaan doonayn bay leedahay bal aan isla eegno waa tani waxaan ku uri reedilow xukuumadda waynu alaala nagu dalgala wiilkii maxamed qoladayadii yarayd ee ma garanaysaa calanka argentiin sidatay naxdin way wada naxeen layfafkooga yarbaa yaa markaa aan daawanayay moogtaha naxdin waar ninkii saw ka olala galay iyagii baa naxay dib bay layfafkoogii wada damiyeen markuu khudbadii galay uu yidhi nabadda ha la ilaaliyo somalilan nabadda ha la ilaaliyo qoladii argentiin calankii way duuduubteen oo jeebkii ku siteen oo way gashteen qoladayadii yarada argentiin calankii intay duuduubteen bay gosha gashteen qoladayadii somalilanderkii markaasaanu yaa ilaan dee ninba xusbi buu watay ninba afkaar goonii watay waar ninku soo kooloola nagu dulgalay ninkii aanu sugaynay inuu reerka maxay haytay ka hadlo dee reerkiiyo gobolladu ka soo jeeday dee uu ka hadlo uu dee xukuumadda u maxay haytay kabaha la dulmaro uu dhaliilo sheego uu wuxuu doono akhriyo oo dee wuxuu israbo uu sameeyo qolyaha iyagii dee maxay haytay waxyaro saluugay inankii ololunbuu nagu dulgalay xukuumadda waynu bedeli waar xukuumadda lagama hadlayo haddaynu nahay nabadda halale waar nabadda waa la ilaalinaya nin walba waa u danoo dee dad somalilan daraynu nahay dee ka hadal dan ka hadal qac buu ka yeedhsiiyey horta dadkii argentintii way wada duuduubteen layfafkoogii qolyaha iyagii kale dee siyaasadda saa u yar eegaya daaqadda ka eegayeyna waar sawka ninku ololo nagu dulgalay waar dee naga tag
qoladii wadani xaggaasay usii jeedsaday kuwii kulmiyana xaggaasay u jeedsaday kuwii cido kuwii ururada watayo waa la sii kala jeedsaday qaybtayadii habar yar guulaysadaanu islahayn ninkani gobolkiisii u yimid oo uu dhibi shaxanayaayo dadna kuu doobiyaya qolyaha iyagiina waa naga duuduubanay haraan ku idhi ayaan loo wanaa ku dhalay jeebkaanu gashana waxay iga daran ninkii maxamed abiibeen islahaa wuxuu odhanayaa waryaahe maana nin loo hanjabaa waar anigu dee barya kuma joogo xiniyaan ku joogaa waar dee anigu gobolladanaan ka soo baxay gobolkaygina waan joogaa ninkayna u danahayno aniga dan maaha baanu ku leenahay haddaanu waayahay haddaba inantan oo ka mida goobjoogayaashii maanta soo dhaweynaya maxamed abiib waxa ay sheegtay calanaan calanka jamhuuriyadda somalilan ahayn in jeebabka lagu watay kabacdi markii uu maxamed abiib uu yidhi waxaan salaamayaa maxamuud xaashi muuse biixi ha dhaco jamhuuriyadda somalilan ha noolaato ayay nimankii mashruuca soo qaatay ee watay cadowga ay wateen meel alla meelay ka baxeen horta waa la waayey baa lagu leeyay gebigoodaba waxa weeye ninkii maxamed abiibna halkii uu lahaa anigu muuse xil laygama qaadi karo somalilan dhaliilaheedana inuu sheego la doonayay unbuu yidhi maxamuud xaashi baan salaamayaa shacabkii reer boorama ee maalmahanba isaga la qiiraysnaa waxay leeyihiin war maxamed abiibow maxaad noogu ciyaaraysay siyaasiyiin reer somalilan aad isaysiin waxa weeye maanta siyaasina inaad halkan ka cayid aad ka aflagaadaysid siyaasina halkan ayaan ka salaamaya inaad tidhaahid saa kumaanaan moodayn annaguna waxaan moodanay waxa weeye in intan waxaan wax ka ballaadhay inaad ka hadlaysid waxa weeye masiirkeena inaad ka hadlaysid gooni sutaageena inaad ka hadlaysid laakiinse markii aad tiri jamhuuriyadda somalilan ha noolaato waxa weeye nimankayagii calanka arjatiin watay iyo nimankayagii wadani ahaa iyo nimankayagii kulmi ahaa waanu kala yaacno waxa weeye hadal nooma bannaano haddii jamhuuriyadda somalilan maanta waan ku hambalyeynayaa maxamed abiib inuu yidhaahdo jamhuuriyadda somalilan ha noolaato muuse biixina ha noolaa maxaa idhahdaa ha dhaco muuse biixi anigu kama soo horjeedo waa madaxweynahaygii siyaasaddiisana waan taageersanahay balse anigu maanta maxamed abiib kuma qasbi karo inuu siyaasadda muuse biixi taageero waana xildhibaan qaran weeye waana xildhibaan ummadeed oo meesha ummadi soo dooratay oo golaha ay keenteen qofku wuu ka soo horjeesan karaa siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan wuuna taageeri karaa qof kale maanta maxamed abiib waxa uu sameeyey wax raganimo ku dheehan tahay buu sameeyey waana u hambalyeynaya maxamed abiib siyaasadduna gebigeedu waa faham waa nabadoo la ilaaliyo iyo labada qof oon isku cadow noqon balse anigaa waxqabadkaad haysid waxqabad dhaama aniga hayuu weeyaan in abiibna muuse biixi unbuu beryahan dambe la coloobay maahe waxa weeye waa xildhibaan qaran waa xildhibaanada ugu hadalka cad weeyaan xildhibaano badan oo meesha iska fadhiya oo wax alla waxay ka hadlaan aan garanayno iska qaatun mushaharka iyo cashuurta dadka uu dhaamaa muuse biixi inuu kasoo horjeesto maxaa idhaahdaa siyaasaddiisa wax weyn ma aha waa caadi taas kolkaa waxaan leeyahay shacabka reer awdal waxaan leeyahay maanta derbi weyn baad jebiseen cadowgii sidii uu idinka sugayey ee uu jeclaa waa diideen laakiin somalilan sidii ay ku wada joogaysay ee nabadeeda iyo horumarkeeda loogaga shaqaynayay ayaad maanta samayseen shacabka reer awdal waxaan leeyahay daawanaya guul shacabka jamhuuriyadda somalilan daawanaya waxaan leeyahay guul maxamed abiibna waxaan leeyahay xildhibaan waxa weeye wax weyn maaha inaad siyaasadda muuse diidid ood siyaasad qof kale taageertid maxamuud xaashina inaad salaantid waa caadi haddii aad la siyaasad tahay muusena waxa weeye waa nin kula mida wuu tartamayaa sidaad tiisa uga soo horjeedo isna taada uga soo horjeedaa taasuna waxa maaha